السلام عليكم أصحابتا maanta waxaan la wadaagayaa sheeko cajiib ah oo aan kala kulmay King Cobra masaska ugu khatarta badan adduunka waxaan isla arki doonaa masaska ugu sunta xoogan iyo goobaha laga helo magaalada Inland Taiwan ee ka tirsan qaaradda Australia waxaa ku nool mas kaasoo halkan iyo u dili kara 100 qof isla markaana 45 daqiiqo ayuu ku dhiman doonaa qofku The most venomous snake in the world. daraasadan la sameeyay ayaa inoo sheegaysa halka mar uu qaniyo sameeyay waxa soo daayaa 110 miligram oo sun ah kanna waa Black Mamba oo laga helo Afrika waana maska ugu dheereeya masaska adduunka kanna waa King Cobra waana maska ugu sunta badan masaska waxaana laga helaa India, Indonesia iyo Thailand safarkaygu wuxuu ka dhacay Indonesia jasiiradda Borneo halkaas oo aan kula kulmay khabiir caan ah oo masaska la tacaala oo magaciisa la yiraahdo Punch soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan tagi doonaa tuulo ka mid ah Indonesia waxaana la kulmi doonaa nin kaasoo xanaaneeya masaska loo yaqaano King Cobra gaarigan waxa ku qoran magaciisa gudaha ayaan u gali doonaa guriga balse waxaan arkaynaa in ninkan uu yahay YouTuber caan ah sidoo kale masaska waxa loo sameeyay guriga lagu xanaaneeyo waan iswareysananaa kiiseerna waxba ku ciyaaraya masas yar waana ninka bedeli doona mustaqbalka dhow aabihii wuxuuna inoo sheegayaa mar uu ka yar masqaniinay inuu isagu daweeyay sidoo kalena dawo dhaqameedka maska uu yaqaano fiiriya maskan waa mid dhalaalaya qurux badan balse marka maska wejigiisa iyo wejigaagu ay isqabtaan waa mid aad u cabsi badan way u marayaan sidoo kalena xubka ayay ka fiiqayaan waxay inoo sheegayaan in bishiiba mar uu xub dhacsado maska noocan ee dadka maqaniina balse ka halista badan leh waan arki doonaa hadda waxayna tusi doonaan maskan oo magaciisa ay ugu yeedhaan Kraga wuxuuna inoo sheegayaa inuu isagu bixiyay magaca waxaan iskaga difaacnaa feedhayuuna leeyahay innagana sheekadiisa ayay baxad inagu kacaysaa ninkani masaska wuxuu la noolaa ilaa ciyaalnimadiisii uu ku soo dhex koray wuxuuna kala garanayaa codadkooda xataa markay xanaaqsan yihiin iyo markay degan yihiinba iyo dhammaan shay kasta oo ku saabsan masaska haddaba sidee ayay noloshu ku noqonaysaa markay gurigaaga masaska ugula nool yihiin sidee ayaad ula noolaan kartaa mas ninkan ayaa inooga jawaabayaa wuxuuna leeyahay masaskan qaar ka mid ah waxay halkan ku noolaan doonaan ilaa 2 sano 2 sano gudaheedna waa la rabayn doonaa fahamka adiga iyo maska idinka dhexeeyana wuu wanaagsanaan doonaa waana dunkan doontaa aakhirka maska imikana wuxuu inoo sheegayaa in yaxaasu lugta ka qaniinay sidoo kalena masuu rabaynaya 2 meelood oo kala duwan uu ka qaniinay saacadda ugu horreysa ayay ugu daran tahay suntu saacadda ugu horreysana amba waad ku dhiman amba waad ku noolaan haddana waan noolahay alxamdulillaah ayuu leeyahay wuxuuna inala wadaagayaa in masaska loo yaqaano King Cobra uu leeyahay 2 dhuumood sidoo kalena masaska kale ayna lahayn badankoodu madaxa ayuuna sunta ku kaysadaa wuuna ka tuujinayaa haddaba suntan markaad gacanta ku hayso dhima laha balse waxaad ka ilaalin doontaa indhahaaga afka iyo xubnaha taranka ninkani 10 mas oo King Cobra ah ayuu haystaa maamadani waa Banji hooyadii waxaana ku oran doonaa ninkan oo hurday inuu masku soo weeraro miyaanad ugu cabsi qabin waxayna ku jawaabaysaa albaabada ayuu adkaystaa maskan ayaan geyn doonaa meel ka baxsan guriga inagoo daawan doona ninkani sida uu la ciyaaro balse maskan 3 jibaar ayuu ka xanaaq badan yahay marka guriga laga kaxeeyo ee laga geeyo banaanka uu la ciyaari doonaa ilaa uu xanaaqiisa ka dejiyo waa maxay farqiga u dhaxeeya King Cobra iyo Cobra wuxuuna inoo sheegayaa in King Cobra uu dhererkiisu gaadho 7 mitir halka Cobra isna una lahayn dhago wax ku maqlo imikana waxaan isku dayay doonaa inaan u dhawaado wuxuuna ninkan inoo sheegayaa in dadka qaar ay jarjaraan kadibna ay cabaan isaga iyo dhiigiisaba maska waynu qaadi doonaa inagoo ku celin doona gurigiisa hadda wuxuu gelin doonaa qolkiisa uuna ku soo xidhi doonaa caawa magaalka ayaan ka soo cashayn doonaa inagoo tijaabin doonaa cuntooyinka ugu caansan markaad joogto Indonesia ninkani waa nin caan ah sawiro ayaana la geli doonaa iminka cuntada ayaan tijaabin doonaa waa cunto wanaagsan bulshada wuxuu ka caawiyaa in qof kasta oo mas soo qaniino uu ku daweeyo dawo dhaqameed maamadan waa 70 jir waxa qaniinay mas uuna daweyn doonaa
caawa waxaan tegi doonaa buuraha inagu dhow inagoo ka soo baari doona masas. waxaan arkaynaa masas yaryar oo geedaha dul saaran. mid ayaan qabanayaa balse wuu weyn qarinayaa. saaxiibkay ayaa xaaladdeeda eegaya balse wuxuu ii sheegayaa inuunan suun lahayn. waxaan raadin doonaa King Cobra. baashan ayaa la ii dhiibayaa si aan ugu qabto. ugu dambeyn mid madow ayaan arkaynaa wuu qabanayaa wuxuuna ka tuujinayaa sunta kadib uu sii dayn doonaa. guriga ayaana ku laaban doonaa ugu dambeyn. channelka ku soo biiro subscribe leh sidoo kalena muuqaalka like saar. halkan ayaan ku soo afmeerin doonaa muuqaalkeena. nabadgelyo.